Education Platform. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. casharadii foomfoorka buugga Soomaaliga ee foomfoorka ama 12aad waxaan soo gaarnay cutubka 10aad ciwaankiisuna uu yahay waayihii iyo tagtadii Xaaji Aadan Axmed Xasan Afqalooc Allah u naxariisto. taariikhdiisii wixii laga yaqaanay ayaan ka sheekeyn doonaa caawa insha Allah taala. abwaanka weyn ayaan ka sheekeyn doonaa. marka casharkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay Xaaji Aadan Axmed Xasan Afqalooc. abwaankaas oo suugaanyahanka ah ayaan ka hadli doonaa oo kaalin weyn ku leh suugaanta Soomaalida ee magac dheer ayaan ka sheekeyn doonaa insha Allah taala. waxaana taabagelinaya casharadan aan duubayno Qalam Educational Platform. kaalinka waxbarashada ee Qalam ayaa taabagelinaya. marka waxaan sii guda galaynaa casharkeena oo ku saabsan taariikhda abwaan Axmed Xasan Afqalooc. Xaaji Aadan Afqalooc mira dhalka casharka ama ujeedka ama ahdaafta casharka waxaa laga rabaa ardayga markuu casharkan qaato inuu 4 arrimood uu gudan karo: ka warceliyo weydiimaha casharka, sharaxo erayada cusub ee casharka waayaha qofka ku jira, soo akhriyo qormo waayaha qofka, dibna faaleeyo qof kale ama iyada nafteeda u akhriyo faalana uu ka bixin karo, qoro waayaha qof uu yaqaano oo kale oo taariikhdiisii iyo sooyaalkiisii uu soo ururiyo. 4 arrimood ee ardayga looga fadhiya marka uu casharkan qaato. waxaa hortiina ka muuqda Xaaji Aadan, Allah u raxmado. Xaaji Aadan inta aynaan casharka akhrin hordhaca hore waxa aan falanqeynaynaa qodobadii aan hore u soo baranay ee looga baahnaa qoraalka waayaha qofka oo qofka marka taariikhdiisa laga sheekeynayo looga baahnaa oo sida hadda aan u bilaabi doono la rabo in loo bilaabo. Xaaji Aadan Axmed Xasan oo ku magac dheeraa Afqalooc waxa uu ku dhashay miyiga magaalada Ceerigaabo meesha loo yaqaano Hal Dhagan ayuu ku dhashay ee toga Marashi qiyaas ahaan sanadkii 1871. marka Soomaalida dhalashadeeda lama qori jirin, hadda nafteeda aan bal aad loo qorin marka laakiin qiyaastii marka la qiyaaso sanadkaas ayay ku beegneed markuu dhashay. Hal Dhagan waxa ay magaalada Ceerigaabo dhanka waqooyi bari ka xigta ilaa 50 kilomitir ee Ceerigaabo xagga waqooyi bari kaga toosan tahay. abwaanku waxa uu noolaa in ku dhow qarni iyo rubuc macnaa 100 sano 115 sano, dadka qaarna 125 sano yiraahdaan. hadda rubuc haddii la yiraahdo 125 sano ay noqonaysaa, laakiin taariikhda noo qoran waa 115 sano inuu noolaa. Allah u naxariistay waxa uu ku geeriyooday 5 Luulyo bisha Luulyo ama Juulaay 1986 magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo ku dhow meeshuu ku dhashay isagoo markaa qiyaastii 115 sano jir ah. Xaaji Aadan Axmed waxa uu ka dhashay qoys reer guuraa ah. dhanka aabbaha waxa uu ahaa ilmihii 9aad ee aabihii dhalo. aabihii xaasas kale lahaa oon hooyadii ahayn, wuxuu ahaa da'dii 9aad ama cunugii 9aad ee aabihii u dhasha ayuu ahaa. dhanka hooyadana waxa uu ahaa curadkii bahdooda, hooyadiisna curadkii uu ahaa, aabbahana cunugii 9aad u dhasha ayuu ahaa. Xaaji Aadan Axmed waxaa hooyadii la oran jiray Dahabo Dhunkaal Dhegayare. aabihiina waxa uu ahaa nin aftahan ah oo golo joog leh, fadhiyada aad looga qadariyo oo nabadoon ah oo dadka taliya ka mid ah ee Soomaalida. markaa Axmed Xasan waxaa lagu yaqaanay oo aabihii ah laynta shabeellada
iyo libaaxyada dadqaadka ah. wuxuu ahaa nin hargaanti ah oo laaya bahalada dadka dhiba oo shabeelka iyo libaaxa waagaa dhulku aad u kayn badnaa. markaas waxa ayuu xoolaha iyo dadkaba ka celin jiray oo caan ku ahaa. xaaji aadan axmed xilligii uu caruurta ahaa ma jeclayn inuu xoolaha raaco. nin xoolo raac ku fiican ma ahayn. waxay sida Soomaalidu tira xoolo mabadar iyuu ahaa nin xoolaha xaggooda ku fiicnayn. dadka bini aadamka qofba meel uu ku fiican yahay, meesha uu ku fiican yahay ayaa loo baahan yahay in looga faa'iideysto. laakiin ninka dhanka xoolo raacidda iyo dhaqaaleyntooda kuma una fiicnayn. laakiin waxa uu jeclaa inuu dadka waaweyn ag joogo oo warkooda iyo wacaalkooda waxyaabay ka sheekeynayaan dhuuxo si uu carro edeg wax uga ogaado. nin wuxuu ahaa jecel inuu waayeelka la sheekaysto ayuu ahaa. abwaanku waxa uu aad u jeclaa inuu carro edeg ama adduunyada war badan ka ogaado. abwaanku intii uu yaraa waxaa soo maray dhibaatooyin badan ayaa soo maray. intii uu yaraa mushkilooyin badan ayaa soo maray saan arki doono. laakiin waxa uu ahaa nin hoodo iyo ayaan leh, nin nasiib badan oo kol kasta allah ka samata bixiyo jiray. dhibaatada haysata allah ka samata bixin jiray, marka uu ka badbaadi jiray. laakiin mar dhibaatooyin badan saan arki doono ayaa la kulmay. abwaan xaaji aadan waxa uu ahaa nin allah fil weyn ama fil weyni dheer siiyey oo da-weyn gaaray. isla kolkaana intii uu noolaa waxa uu la kulmay hortumooyin turunturooyin badan oo ay ka mid ahaayeen qafaalasho, xarig sanado badan ah, dibad joog iyo wixii lamid waxyaaba dhibaatooyin badan yuu soo maray. abwaanku waxa uu ahaa nin hoodo wanaagsan oo nasiib leh oo allah waxa uu ka badbaadiyey oo ka samata bixiyey dhibaatooyinkaas iyo turunturooyinkaas soo maray oo dhan. wax badan oo meelo badan dhibaatooyin ka soo maray, ilaahayna uu ka samata bixiyey. aad ayuu ilaahay nasiib fiican uu u siiyey. xaaji aadan axmed afqalooc isaga oo 4 jir ah, dhibaatooyinkii aan gelaynaa soo maray, isagoo 4 jir ayaa libaax la tegey. kolkii uu libaaxii la tegey meel cidlo ah, isagoo 4 jir u qaaday meel cidlaa markuu marsiinayo dhigay oo inuu cuno uu rabay, ilaahay baa ka celiyey, uu isaga tegey libaaxii isagoo dhiig ka daayo oo afku qabtay. waxaa afqalooc loogu bixiyey libaaxa meeshii uu afku ka qabtay markuu soo qaadanay ka soo qabtay. markaa kadibna dhowr beri 2 maalmood kadib markii uu libaaxu ka tegey ayaa waxaa gabar ari la joogta ayaa meeshii ku aragtay isagoo dhiig baxay. gabadhii baa caano ku qabatay oo ariga u listay oo nafta u celisay. kadibna ciddeedii ayay u geysay. 3 bilood ayay ciddii baaninayeen oo gabadha meesha ka heshay la joogtay gabciddoodii. markaa kadibna 3 bil kadib shir oo qoysku isugu yimi oo reeraha deegaanka yaa laga baafiyey. kadibna ciddiisii yaa u timi oo dib u ceshatay oo dib u qaadatay. marka waa dhibaatada koowaad ee soo marta. isagoo 4 jir ah yaa libaaxaas la tegey, ilaahay baa ka badbaashay. afqaloocana waxaa looga habeenkii libaaxu la tegey oo afka libaaxu uu ka qabtay. marka sidaas afka ku qaloocday. mar kale oo dhibaatada labaad oo soo gaartay waxay ahayd isagoo abwaanku 9 jir ah oo ari la jooga meesha xeebta la yiraahdo mayd oo baalkii muxuu ahaa bariga gobolka Somaliland ku taala, ayaa waxa ay reerkoodii ku tiriyeen inuu geeriyooday. wuxuu raacay alwaax oo arkay bad meesha xeeb ay ahayd. alwaaxii kor fuulay, baduu raacay. markaas uu ku fogaaday meel fog uu ka soo noqon karin ayuu tegey. kadibna niman doomo wata oo Yemen iyo isugu jira iyo danaakiishu waxa weeyaan cafar ayaa qabsaday. way ku shaqaysan jireen oo sidii adoon ah ay heleen oo kale ayay ugu shaqaysan jireen. nimankaas iska haysan jireen muddo. ciddiisii marka way ka samreen, dhimashay ku xisaabeen, badu la tagtay. marka doonyihii oo watay isaga ayaa mar dambe waxay yimaadeen xeebta, meel xeebta ka mid ah oo Soomaalida ayay yimaadeen. muddo 6 bilood ah markay haysteen ayay meel xeebta ah ayay yimaadeen si ay
meesha uga adeegtaan oo ay biyo iyo uga qaataan meesha tuulada ah ayay asagiina wala socdaa. intaa kadib doonyihii waxay yimaadeen tuulo la yiraahdo magaceeda la yiraahdo ayay yimaadeen Waqdara, asagiina wata ayay yimaadeen oo u dhaxaysa mayd oo meeshii wax ka raacay ah iyo Laas Qore. kolkii ay hawshoodii dhamaysteen si ay cunto iyo waxyaabo kale uga gataan meeshii, markay inay laabtaan rabeen ninaa arkay wiilkan yar oo la socda. ninkaa waxaa la oran jiray oo arkay Cali Gaacir nin la yiraah ayaa arkay wiilkan Soomaaliga oo nimankan wataan. ninkii markaa Cali Gaacir ahaa waxa uu aqoonsaday wiilkani inuu yahay Soomaali ayuu aqoonsaday. waxa uu wiilkii markuu gartay inuu Soomaali yahay kadib intuu galka seefta kala baxay oo hubkii soo qaatay iyo wuxuu yiri wiilkan waa ka tageysaan ama waa in leen adinka dhan, wiilkan meesha waa iga tageysaan. marka wiilkii way ka tageen. markay naftoodii iyo wiilkii noqotay waa uga tageen. Cali Gaacir ay ku dhaafeen oo meesha uga tageen. Cali Gaacir waxa uu afqalooc u kaxaystay gurigiisii asaga watay. muddo kadib isagoo ilmo la ciyaaraya yaa waxa arkay habareertiis oo socota, markaas ku ooysay oo ku soo booday. Cali markii inay wadatay damacday Cali ninkii qabsaday Cali Gaacir ahaa oo ayaa diiday. wuxuu yiri ninkan ilaa magtiisii la siiyo la iga wadi maayo. Cali Gaacir waxa uu afqalooc habareertii u sheegay in aanay kaxaysanayn ilaa magtiisa la siiyo oo boqolkiisii loo soo meeriyo. muran dheer kadib waxay xeer beegtigii oo odayaashii ay yimid waa la isu fariistay. kadib waxaa afqalooc la yiri ninkii halaga fujiyo. waxaa la siiyey 10 ishkin waay 10 halaad ayaa la siiyey oo sidaas uu kol kale reerkoodii gurigii aabihii iyo hooyadii ugu soo laabtay. waa markii dhibaatadii labaad oo Ilaahay ka badbaadisay. abwaanku isagoo 14 jir mar dambe oo waagaas 3 sano kadib 5 sano kadib waagii doonta uu ka soo haray 5 sano kadib oo uu yahay 14 jir uu dibadda u dhoofay. socdaalka ugu horeeyay waxa uu doon ka raacay xeebaha gobolka Sanaag. doontu waxa ay siday ari ahmin ah iyo dhuxul ari jar ah oo ay sido waaweyn iyo dhuxul. kolkii hore socdaalka baddu way deganayd oo ay doonta saarayeen, laakiin habeen barkii markay ahayd bay baddii ku kacday oo doontii iyo wixii saaraaba ay liqday baddii iyada iyo wixii saaraaba yaa afka u dhigatay way liqday. ilaa dhowr qof ayaa ka badbaaday oo Xaaji Aadan uu ku jiro. dhowrka qof ka badbaaday waxaana u soo gurmaday oo badbaadiyay markab oo isha ku dhuftay markii hafanaysa doontu arkay yaa u soo dhawaaday. isaga intii roonayda dhowrkii qof yuu qaaday. xaajigu waxa uu tegey magaalada Cadan oo markabkii geeyey oo in muddo ah uu ku noolaa. kadib meeshii markii uu joogay oo shaqo ka waayay oo noloshii ku adkaatay magaaladii Cadan ahayd ayuu wuxuu goostay inuu ka haajiro iyadana ka tago. xaajigu waxa uu ku dhuuntay oo raacay markab u shiraacan ama u socda Hindiya ayuu ku dhuuntay oo alaab sida. markuu tagayna wuxuu la kulmay xabsi, waa la xiray. Hindiya markuu tagay oo markabkii dad ka soo degeen waa la xiray. kadibna waxaa dib loogu soo celiyay Cadan. markuu bil ku xirnaa ayaa loo soo musaafiriyay wadankiisii hooyo ayaa lagu soo celiyay markuu Cadan bil ku xirnaa. kadib xaajiga markii uu soo laabtay in muddo ah ayuu ku dhex jiray noloshii reer guuraanimada oo baadiyiisu isaga laabtay oo Soomaalida. kadib ayuu haddana mar kale u boqolay ama u safray Yemen uu ku noqdo. haddana markan wuxuu tegey Sanca, Cadan ma tegin. isagoo markan degay dhanka Sanca oo uu Ilaah u fududeeyey inuu ganacsi ka furto
meeshaas marka ganacsi uu bilaabay xaaji aadan. waxa uu mar kale ka qabsaday imtixaan kale oo waxaa lagu soo eedeeyey isagoo cadan sanca ka shaqaysto ganacsada ah yaa la xiray dad nin la dilay yaa loo qabsaday oo nin shufto ahaa oo tuug ahaa oo la dilay ayaa waxaa la yidhi asagaa dilay, kadibna waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. waa dhibaatadii saddexaad oo la kulanta. mar kale ilaahay waa ka badbaadiyey iyadoo asaga iyo niman kale oo dadkii xabsiga ku jiray ah ay isla fakadeen aba xabsigii intay jabsadeen iyo ka baxsadeen xabsigii. kadibna xaajigu waxa uu ku dhuuntay markab u socday faransiiska ayuu raacay. nasiib darro markii uu tegey faransa ayaa haddana lagu xiray meeshii faransiiska muddo, kadibna loo soo masaafuriyey jabuuti a laga soo dejiyey oo faransiisku gumaysanaya. xaajigu halkaas ayuu haddana safar dhulka ah uga galay ilaa Eritrea. wuu lugayay markaas Eritrea u galay, Suudaan uu galay halkaa muddo, kadibna Masar oo uu ku biiray jaamacadda Azhar uu galay. marka Masar inta tegey kana soo qaatay cilmiga diinta ayuu ka bartay. xaajigu kadib wuxuu wadamada Eritrea iyo Suudaan ka bilaabay diin barid. sheekh uu noqday oo diinta fidiya oo Suudaan iyo Eritrea iyo ka shaqeeya diinta ka faafiya. markii uu gumaysigii Ingiriiska iyo Talyaanigu oo kala xukumayay wadamadaas, oo Ingiriiskana wuxuu xukumayay Suudaan, Talyaaniguna Eritrea haystay, ayuu la kulmay xarig iyo dhib badan oo diintii iyo wuxuu hawshu waday lagaga soo horjeedo, maadaama mahdigii oo Ingiriis ka soo horjeeday uu meesha uu ka dagaalamayay oo diinna uu ku dagaalamayay. markaa isna waa la xiray. waxaa loo wareejiyay xabsi ku yaal Masar la geeyey oo Ingiriisku haysto. xaajigu waxa uu booqday oo u boqolay masana markii xabsiga laga sii daayay dhulka Falastiin oo uu qayb ka noqday halgankii oo ka socda meeshaas oo Falastiiniintu wadeen oo ay kaga soo horjeedeen Yuhuudda iyo ka qayb noqday. haddana halkaasuu ka dagaal galay. abwaanku dhul mareen nimadiisii kuma ekayn halkan ee waxa uu booqday dalal kale oo badan sida wuxuu tegay Syria, Iran, Chad, jasiiradaha Jaffa, Indonesia, Pakistan iyo dalal kale oo badan ayuu tegay. waxa uuna ku hadli jiray luqado badan oo ay ka mid ahaayeen Urdu oo looga hadlo Pakistan, Farisi oo Iran ah iyo Hindi ayuu ku hadli jiray. luqadahaas iyo kuwo kale ayuu ku hadli jiray. dabcan carabigana de waa luqadii iyo Soomaaliga luqadihiisi waa. xaajiga intii uu dhulmareenada ku jiray waxaa la sheegay inuu guursaday 2 haween ah ajaanib ah oo uu u dhalay 5 caruur ah, laakiin aan haybtood meel lagu sheegin. meel ay ku dambeeyeen lama yaqaan kuwaas. ilmahaas 5 ah asagaa sheegay inay u dhasheen, laakiin meel uu ku og yahay ma jirto. markii uu dalka ku soo laabtayna wuxuu guursaday ilaa 3 haween ah, waxaana loo dhalay 4 caruur ah. abwaanku waxa uu dalka dib ugu soo laabtay sanadkii 1943 isagoo soo kororsaday waaye aragnimo dhul badan soo maray oo adduunka noloshiisa soo arkay, oo waaye aragnimo nololeed haysta, mid halgameed haysta oo halgam ka soo qayb galay, aqoon diineed soo bartay, waxyaabo badan soo watuu soo laabtay. xaaji aadan waxa uu aad u taageeri jiray in qofku inta uu nool yahay dhul mar noqdo, si ay asaga siduu sameeyey oo kale in dadku sameeyaan u jeclaa oo ay dhulka maraan oo aysan meel keliya aysan fadhin, si ay dhaayo indho u kordhaan, indhahooda waayo aragnimo iyo ilbaxnimo indhahooda wax badan usoo arkaan. waxa uu dadka ku guubaabin jiray in aanay meel iska fadhiyin oo ay socdaan, si ay nolosha carro edeg ama adduunka wax uga ogaadaan, oo hal meel inaysan fadhine qofku uu safaro badan galo si uu wax badan u ogaado. Soomaalidu waxa ay ku mahmaahdaa nimaan dhul marin dhaayo ma leh, maana qof aan socon indha ma leh, dhaayuhu waa indhaha. xaaji aadan afqalooc isaga oo suugaantiisa ku muujinaya in dadku socdaan oo fadhiga ka kacaan, waxa uu gabay ku yiri
isagoo dadka Soomaaliyeed la dardaarmaya si ay u socdaalaan oo carrada u maraan iyo wuxuu yidhi saboolnimada aabaheed waa fadhiga ee aad u camal yeesha fadhiga in kugu wacan saboolnimada shaqo badan qabsada aad u camal yeesha shaqaye adigoon indhala'ayn waqtiga meel ha ku idlayn adigoo indhala'ayn oo indhala'aan oo soco waayin oo wax arkaya hal meel waqtigaa ugu dhammayn ee soco saasuu marka qabay aragtidaas in la socdo xaaji aadan markii uu waddanka ku soo laabtay wuxuu la yimid waayo aragnimadiisii aqoontiisii iyo maalkiisiiba asagoo wata ayuu yimid adduunka la gumaysto arnimo doona markaa waa markii SYL la aasaasay iyo SNL iyo xaajigu allah u naxariistee wuxuu horay uga soo qayb qaatay halgamadii ka socday Suudaan ee mahdiga uu waday iyo kii Falastiin markii waddanka uu ku soo laabtayna waxa uu ka mid noqday halgamayaashii gobolada waqooyi ee Soomaaliya iyo guud ahaan geyga Soomaaliya SNL iyo SNM iyo SYL iyo waxaasoo ururadaas jiray kuwaasuu ka qayb noqday asagana xaaji aadan allah u naxariistay waxa uu ahaa aftahan diricnimo eebe u siiyey suugaanta oo aad u yaqaana bulshadana aad u yaqaana oo suugaanta ku gubaabiya wuxuuna tiriyey suugaan badan iyo gabayo badan oo dhiirigelin ah oo dadka uu la dagaalanka gumaysiga iyo inay horumar sameeyaan uu ku gubaabinayo isku duubni iyo tusaaleynba ayuu sameeyey inay dadku isku duubnaadaan midaysnaadaan isla jiraan wax wada qabsadaan iyo tusaalooyin badan ayuu siiyey abwaanku gabayadiisii waxa ay mar walba la jaan qaadi jireen ama la socdeen xaaladaha dadku ku sugan yihiin marxaladda la maraya ayuu ka gabi jiray markasta uu ka hadli jiray tusaale ahaan xilligii halganka kii dowladdii rayadka iyo kii kacaankaba wuu ka gabi jiray intaba uu ka gabi wuuna ka qayb qaatay gabayadii xaaji aadan oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaa ka mid ahaa gobonnimo miyaydaan aqoon diinta dilkii Sheekh Bashiir dardaaran aqalkeeda leegada halkii noolba calankii la saar ubaxii dalkaygow hayin qalaad afka hooyo baroor diiq iyo kuwo kaloo badan ayuu tiri xaajiga allah u naxariistee noloshiisii inteeda dambe waxa uu u soo wareegay magaalada Muqdisho oo uu muddo joogay isagoo codkii idaacadda raadiyo Muqdisho ku duubay gabayo badan oo uu tiriyey oo hadda u kaydsan kaydka raadiyo Muqdisho markii dambe xaajigu isagoo caafimaadkuna sii liidanayo ayuu goostay inuu ceerigaabo u laabto oo meeshii deegaankiisii si haddii ay tii alle timaado halkaa loogu aaso sidii ayayna u dhacday 5 Juulaay 1986 ayuu halkaa ku dhintay saan hore u soo sheegnay waxqabadka labaad annaga oo adeegsanayna waayo aragnimada aan u leenahay afka Soomaaliga waxa aan ka warcelinaynaa weydiimaha casharka nala ka weydiiyey ee soo socda xilligii yaraantiisii maxaa uu abwaanku jeclaa wuxuu jeclaa inuu odayaasha ag joogo oo la sheekaysto dadka way aragga ag joogo oo xogta ka ururiyo saasuu jeclaa sida casharka aan kusoo baranay xaaji aadan afqalooc waxaa lagu tiriyaa inuu yahay nin hoodo iyo ayaan badan waayo waxaa lagu tiriyaa dhibaatooyin badan oo soo maray mushkilooyin badan iyo halis badan yaa ilaahay ka badbaadiyey marka saas ayuu u hooda iyo nasiib badan muddadii uu xaaji aadan dibadaha wareegayey oo dhulmareenka ahaa maxaad isleedahay wuu soo kororsaday wuxuu soo kororsaday aqoon dhaqaaluu soo helay daduu soo bartay dhuluu soo bartay wax badan ayuu soo faa'iiday dhacdooyinkii uu xaajigu soo maray teebaad isleedahay way ugu adkayd adiguse maxaad samayn lahayd saddexdaa dhacdo kadib markii kugu dhacdo maxaad samayn marka waxaan isleedahay waxaa ugu adkaa markii dilka lagu xukumay taas waa inta kale
waa un meelo nolol ah iyo tii uu markabku ama doontu ay badda kula dhacda, labadaas yaa ugu adkaa. adiga ahaanta maxaad ka baran kartaa dhacdooyinkii iyo meeshii uu xaajigu soo maray in la socdo oo adduunka la maro oo wax badan la kororsado, aqoon iyo waayo aragnimo intaba ayaa laga baranaya. sheeg 4 turunturooyin oo xaajiga ilaahay ka badbaadiyey. marka 4 waa casharka ku jiraan. waa markii libaaxu la tegey, markii nimankii doonta ay qabsadeen oo alwaaxu la baxsaday, markii uu doonta raacay ay la gadoontay, markii la xiray oo xabsiga dilka lagu xukumay. 4taas waxa ay kula tahay, maxaa ay kula tahay inuu libaaxii xaajiga markuu soo qaaday uu haddana uga tegey? waa ilaahay un baa ka badbaadiyey oo ka badbaadiyey. waxaa laga yaabaa inuu yaraanta uu ku yasay oo uu isiri waxaan waxa kuu qalma ma ah. ilaahay taa ku duway ayaa laga yaabaa. maxaa laga baran karaa socdaaladii badnaa ee xaajigu sameeyey? waxaa laga baran karaa waayo aragnimo iyo dhulmarnimada faa'iidada ay leedahay. maxaad ka baratay guud ahaan waayaha xaaji aadan? waxaan ka baranay dhulkuu maray iyo dhibaatooyinka soo gaaray iyo taariikhdiisii yaan wax badan ka faa'iidnay. markii uu xaaji aadan waddanka ku soo laabtay wuxuu ka qayb qaatay halgankii xornimadoonka. maxaad isleedahay way saameeyeen oo ku kalifay inuu ka qayb qaato? xaajigu wuxuu ka yimid halgan kale oo Falastiin kasoo qayb galay halgankeedii, wuxuu kasoo qayb galay mahdigii. marka isagaaba soo arkay gumaysiga iyo sida loola diriray looga horjeedo, isagoo xamaasadaa qaba ayuu dalka kusoo laabtay. marka wixii socday iyo dhinac ka gal. taasaa ku bixisay. sharaxaad kooban ka bixi tuduca laga soo qaatay gabayga amlaag ee xaaji aadan afqalooc. marka gabayga iyo tuduc midna nooma qora, gabaygan oo nooma qoro asaga dhan, laakiin erayo ka mid ah ayaa qoran. waxaan rajaynaynaa daabacadda dambe in lagu soo daro buugga insha allah. idinkoo afmeerkiyo ka yimi idhinka gaaroodi oo soo araday oo berbera adhi iyo geel keenay, ahminkaaga goortaad gadeed imato daaskaada, haddaad tidhi ascaartiyo maryaha iibku wuxuu joogo afku dhabasho mooyee weydiin ma ogolaanayne. adiga oo marka beydadka gabayga laga soo qaaday oo hadda sheegaya waa kuwan, laakiin gabaygaas buugga qoraalkiisa wuxuu ugeegay mid la qoray loogu talagalay, kadibna waa meesha in laga iloobay oo ereyadiisa un lasoo qoray laakiin aan isaga lasoo qorin. adiga oo soo dheeganaya fahankii iyo kasmadii aad ka heshay casharka kore, waxaad qortaa qoraal aan ka yarayn 4 bog, adiga oo sawrac iyo humaag fiican ka bixinaya dadkii xilligaas joogay ee abwaanku la hadlayay iyo xaalkooda siduu ah. marka adoo beydkan dib u raacaya tuduceedan ama ayaad waxaad qoraysaa xaaladda dadkii waagaa joogay ay ku sugnaayeen meesha kala soo dhexbax. waxqabadka saddexaad amlaag waa erey carabi ah oo la micno ah hanti, maal, xoolo iyo wixii lamid ah. abbaan waa ereyga abbaan, kol waa shaqaale cid u shaqeeya, kol kalena abbaan waa madax ama hogaamiye ayuu noqon karaa. waa 2 lahjadood. ardaal ama ardal waa erey carabi ah oo la macno ah doqon, dhaadhaan ama sawaab. marka ardaalka Soomaalidu waa taqaan dadka oo waxaa la yiraahdaa baadiyaha ciyaar suuqooda, kuwa aan xoolana ku fiicnayn, iska ciyaara meelaha dheelaha un jooga oo ciyaartooyga ah, ciyaarahaas hidaaya dhaqanka iyo habeenadii dheela oon laakiin xoolana ku fiicnayn, wax tabac iyo waxtar aan lahayn ayaa ardaal la yiraahdaa. baaniyaal waa erey hindi ah oo la macno ah qofka hindiga ah ayaa baaniyaal la yiraahdaa, laakiin Soomaalida waxay u taqaan baaniyaal qof hanti haysta, hanti badan. afmeer
waa erey la macno ah goodiga dhulka la degan yahay intuu fadhigiisa dhulka oo limaadka ah ama la deegaanka ah ee meeshuu ku afbeelo ciddu meeshay degan tahay berrinkaas inta uu ku kooban yahay ayaa afmeer la yidhaha. gaaroodi waa dhulka ay aada uga baxaan dhirta galoolka iyo dhirta quraca ah oo qodaxda leh meelay aada uga baxaana la yidhaha. ahmin waa orgida iyo wananka laga ganacsado ee la gedisgeeyo oo la ganacsi geeyo si loo qalo oo hilibkooda loo gado. waa xoolaha ariga jarka la yidhaahdo oo soomaalidu dhoofiso wey. arameed waa erey af hindi ah oo cay ah. marka ereyadani waxay ku jiraan gabaygiina ma la soo qorin saa haddaa sheegnay. markii la qoraad arki doontaan meesha uga jiraan. arjood waa erey af hindi ah oo cay ah. idalji waa magac nin ganacsade ahaa oo berbere joogi jiray magaciisi wey. allah ka koodin waa erey la macno ah allah oo lagu gaaloobo ama lagu kufriyo. aswaaq waa erey carabi ah oo la micno ah suuq. waa suuqyo oo jamaca weyaan. aswaaqda suuq oo la jamciyey wadar ah ama suuqyo weyaan. raamaan raam waa ilaah sanam ah oo ay hindidu berbera ku caabudi jireen. waa sanam hindidu lahayd oo berbera ooli jiray weyaan magaciisa. abdaal waa erey carabi ah oo la macno ah qedel ama bedelaad. iqbaal waa erey carabi asna oo la macno ah ogolaansho aqbalid weeyaan ama isfahan. nasar waa erey carabi ah oo la macno ah guul lib ama galad. waqaf waa erey carabi ah oo la macno ah bilaash ama lacag la-aan wax lagu qaadanayo oo lagu siinayo. tarxiib asna waa erey carabi ah oo la macno ah soo dhoweyn. abuya waa jaad dhar ah oo la xidhan jiray xilligaas. dharka nooc ka mida weyaan waagaa jiray. kudkude waa dullin yar oo ciidda ka soo dhex baxa oo qaniinyadiisu arami iyo eel reebto. waa hadduu ku qaniino meeshii waa bararaysaa muddo badana xogaysaa. waa wuxuu jooga meelaha geedaha hooska badanaa oo ka dhashaa xooluhu cunaa kudkudaa leyna. dadkana waa cunaa markay meeshaa fadhiistaan. abwaashta waa erey carabi ah oo la macno ah wax huubo ah ama dad guraangur ah oo isku dhafan ah sida gun la yeso oo kale. waa dad la yeso oo dad la liido weyaan macnaheeda. iclaan waa erey carabi oo la macno ah ogeysiis. kinaayo waa erey carabi ah oo la macno ah maldahan waay wax maldahan. amab waa erey carabi ah oo la macno ah bakayle. arnab bakayle. arwaax waa erey carabi ah oo la macno ah rubad xaw ama nolol ama naf. ajsaad waa erey carabi iyadana oo la macno ah jirka ama jirarka. khaliya waa erey carabi ah oo la macno ah meel maran oo cidlo ah. khaliya la macno ah. idhanka waxaa la yidhaahdaa girgiraha weelka qabadaha ay ka jaladmo ama weelka qabada ah meeshuu ka tolmo. girgiraha wax lagu kariyana waa la yidhaha ama burjikada ama idanka oo faax ay lagu shito iyo unsigaya. acmaa waa erey carabi oo la micnaa indhala-aan. ramaad waa erey carabi oo la micnaa dambas ama caro. dadqaad waa bahalka dadka qaata ee cuna sida libaax oo dadka la taga. hoodo cawo iyo ayaan ama nasiib wacan.
ayaan erey kale oo la macno ah hoodo, samata bixin badbaadin waay, qafaalasho xoog ku kaxaysasho, turunturo wax lugta kaa qabsada oo ku rida ayaa la yidhahda, ood ku kufto inta lugta gashato. foofay daaq tegey ama beynigaas aaday jihadaas u baxay, jiho u baxay. jidiin dhuunriyey, dhuunta cuntada iyo biyuhu maraan kolkay engegto ayaa la yidhaahdaa jidiin dhuun miray, waa dhuuntii qalashay. urquuntay qofka dhuunku qalashay oo biyo ama caano la siiyo si dhuunta loogu qooyo, dhuunta loo qooyay. baytiyeen sheegeen ama xogtiisa soo gudbiyeen. luul waa dhagaxa qaaliga ah ee dheemanka ah, dhagaxda badda laga soo helo qaar ka mid ah. dhigta dhiigga dar, waa la dilay, dhigta dhiigga loo daray waa la dilay oo la gowracay. mag waa qofka la dilay xoolaha laga bixiyo. xeer beegti waa guurtiga ama odayaasha xeer ilaalinta ee bulshadii hore Soomaalida, dadka garta u noqo geedka u fadhiya ayaa la yiraahdaa. ishin geela iyo looda, ishkinna waa la yiraahdaa. ishin oo dhaninka ishkin. ahmin wananka iyo orgida la dhoofinayo ayaa la yiraahdaa, oo aad u cayin horena u soo aragtay. hafasho waa biyo aad ku dabaalan kari weysay ama arrinkaa taf, biyo aad ku laqay inta ka dabaalan kari weysay ama arrinkaa taf dheeraatay oo gaari weysay oo kaa tan badatay ayaa la ku haftay arrintaas. dulmar qofka carro edeg ku soo meeray oo soo dalmara la yiraahdaa, ama dhulmar qofka adduunka ku soo wareegay oo meelo badan tegay. dhaayo aragtida indhaha ayaa la yiraahdaa. hur bixi adag adiga oo aan waxba ku hur waay, waxaan iska hur adigoo waxba ku bedelan iska dhiib. tashiil waxa aad haysato oo la dhowro ama la dhaqaaleeyo ama la ilaaliyo ama aad loogu fara adeyga weyn. hiigsade waxaad doonayso in aad ka guungaadho oo ka daba tagto ood hiigsanayso. dabuub warka hanuuninta ah ee qofka la siiyo oo talo loogu jeediyo qof. marka qodobta afraad ama waxqabadka afraad waxaan isku aadinaynaa erayadan iyo sharaxooda ayaan isla doonanaynaa oon isku aadinaynaa. marka erayadan oo qeybtan waa sharax, ereygana dhinaca kale ku yaalaa. marka ereyga iyo sharaxiisaan isku aadinaynaa. barwaaqo, ladnaan, waxaa hal erey oo micnahaas muujinaya yaan dhinacan kale yaan ka eegaynaa. waa baydi ayay noqonaysaa. baydi ayuu noqonayaa. baydi ayay noqonaysaa. dayac watatacow, iyadana markaa dhinacan ka eegno erey dayac iyo watatacow ka hadlaya oo hal erey oo micnahaas koobaya isagana oo dhinaca kale yaala. wuxuu noqonayaa watatacow wax la micnaa beer daro way, wax la beer dareeyey oo lagu ciyaaray ayuu noqonayaa. nacas, berde, baalaweyne, baynax, mooye, birma, goyso. intaa erayo la sugeeyey. ereyga la micnaa waxaa baynax, xaggooba baynax uu ku sheegay, inta baynaxee ka fiiray. afar gaadiid badeed oo doontana ka yar huurigana ka weyn. macnaa doontana uu ka yar yahay, doonta yartaana uu ka yar weyn yahay. waa gaadiidka badda ayuuna ka mid yahay. waxaa la yidhaha beden ayaa la yidhahdaa. beden ayaa la yidhaahdaa. dhinaca uu naga qarsoon yahay magacaasi. marka bedena la yidhaahdaa. bedenka
ayaad ku aadinaysaa lambar 4 oo ugu hooseeya oo nambarka 10 ku beegan. kolka neefka gamaanka ahi isla in la kudo ama kudaal u baahan yahay. neefka gamaanka waxa weeyaan fardaha iyo dameeraha iyo markay u baahan yihiin kudid markaas ay isu tagaan labkii dhadiga marka maxaa la yiraahdaa marka ayaan xaggan ka fiirinaynaa. waxay noqonaysaa beedal ayaa la yiraahdaa beedal ay noqonaysaa beedal bay noqonaysaa. abaar toos aadanaan miis qiyaas abaar toos aadanaan miis qiyaas. cabir wax tilmaamaya weyn cabir wax tilmaamaya waa beegid weyn ay isku macno yihiin. buuriyo baaro baqbaqa indhaha ku yaalo maxaa la yidhaha waxaasoo dhan magacood beeja la yidhaha. iyaga waxaasoo dhan marka laisu geeyo magac ka dhexeeyo waxaa la yidhaahdaa beejo. soo beejada la yidhaahdo waxa la jaro oo wiilasha laga gooyo dharka. xubinta dhiigga safaysa ee noolaha beerta la fasho beerta la fashana waa la yidhahdaa meel dhiigga safaysa oo jirka ku jirtana waa la yidhahdaa waa beer. waa xubin miirista iyo shaandhaynta dhiigga macaanka iyo dufanka badan ee nafaqooyinka ku jira dhiigga ka sifaysa. waxaa la yidhaha iyadana waa iska beerkii uun kale beerka oo kale. wax hawl laguu diray baylihin oo dayacday wax laguu diray oo dhaliil ka soo noqotay waxaa la yidhaahdaa baylaha. waa midda 10aad weeyaan. waxqabadka shanaad waxaan isla baadigoobaynaa mahmaahyada ku jira joogtaxa koowaad qaybteeda ka maqan ee ku jira joogtaxa labaad. kadibna hoos ayaan ku qoraynaa mahmaahaha oo ishaysta oo dhammaystiran ayaan qoraynaa. marka mahmaahadii oo laba u kala go-an yaa labada dhinac ku jirto waa isu geynaynaa. geed laga dhacay wuxuu leeyahay gacmo lala ma tiigsado. mar haddaa ka dhacda kadib gacmo la tiigsi waxba kuma tarayaan. marka kuwaan lambaraan ku qoraynaa kadibna xaggaan lambaradaas ku qoraynaa. lambarada kuwaan siinaynaa 5 6 7 8 9. marka kuwaan kale lambaradaas yaan ku hor qoraynaa si ay noogu fudaato si isu leeyihiin yaan isu raacsiinaa. tan koowaad waa taa gacmo lalama tiigsado geed laga dhacay. geed waa madal geedku waa madal iyo meel isugu yimaado. inta joogtaana waa markhaati. inta joogtaana waa markhaati. geed weyn geed weyn marka godin yar baa goyn karta. geed weyn godin yar baa goysa. godin yaraa jari karta. waa hadii geedkan gacana lagu goyna xooga loo isticmaalaya. godintu waa yar tahay laakiin geedka waa lagu goyn karaa. geed yaraan lagu beero oo markii la beero 60 jirka la harsadaa. marka yaraanta ku beerto 60 jirka ayaa harsanaysa. geel aan gaawo loo hayn. gaawuhu waa weelka haruub lagu liso ama toobte ama gorof magacyo badan uu leeyahay. looma godlo ma gaawoba looma hayo wax lagu liso lama haye lama godlo weel looma hayo. geel bo-ow yaa ku leh. geel bo-ow yaa ku leh. geel balaayo ku dhacday ama la dhacay ama dhibaato kala haysato. geelba sibir godan
geelba sibir godan sibirtu waa simaha dhexdooda simaha iyo meesha ka simaha dhexdooda yuu geeluna ka godan yahay geel baan lahaan jiray waxaa dhaanta dameer baan leeyahay waa lahaan jiray waxa matarayso waxa hadda leedahay yaa ku anfaa waxaad lahaan jirta ama aabbahay lahaan jiray ama waa lahaan jirnay geel wisil daaqay iyo gob nugul waa duraantaa waa laga allabaryaa laga wadaa waa laga ducaystaa marka hadhow marka ardaygu waxaa qoraysaa waa sida isku aadinaysid oo isu raacsiinaysaa sidoodii ayaa isu raacsiinaysaa waxaan qorayaa waxyaabo ka mid ah madaxweynayaashii Soomaaliya laga soo bilaabo 1960kii ilaa hadda waxaa madaxweynayaashii soo maray Soomaaliya ayaan qorayaa marka inaad tirisaa laga rabaa madaxweynayaashaas erayadan micnayaal badan ayaad u sameynaysaa tirada micnayaasha yeelan karaan ayaad qoraysaa markaan qorno il oo kale waa il waxay noqonaysaa indhaha mid ka mid a waa indho waa indhaha mid ka mid a waaye indhahay noqonaysaa waxay kaloo noqonaysaa il biyood il biyo laga cabana way noqonaysaa gar waa arrin ayay noqonaysaa laga hadlo xubin jirka ka mid ah jirka ah sur waa jeego qoor way noqotaa qadaad intaa way noqon kartaa kuwo waxyaabo kalena way noqon karaa wax meel la surana sur way noqon kartaa amar ah san waa xubinta neefsiga waxaa kaloo la dhihi karaa wanaagsan wax wanaagsan waa san yihiin kur waa qoorta inta ka koreysa ka kor jirkaaga qoorta inta ka koreysa waxaa la dhahaa sur kur gumburna waa la dhahaa buur yarna waa la dhahaa shin waa xilli ama sidna waa la yidhaha inta xooluhu ay ilmaha caloosh ku sidaan waa la yidhahdaa mir waa hal mir hal shay kaa waa la yidhaahdaa roob habeen da-ana waa la yidhaha habeen da-a doox waxaa la yidhaha shuban toorna waa la yidhaha wax la isku darsaday waxaa kaloo la yidhaahdaa caloosha qofka in laga mudo dooxidda ka mudid far waxaa la yidhaahdaa meel biyuhu maraana la yidhaha mareen ah waxaa kaloo la yidhaahdaa far oo noqon kara asagana fariin waxaad qofka farayso fariin aad u dhiibayso way noqon kartaa farahaaga mid ka midana way noqon kartaa waxqabadka sideedaad
waxa aan dib u akhrinaynaa waxyaabihii xaaji aadan kadibna aan dib u akhrinaynaa waayaha xaaji aadan soo maray taariikhdiisa kadibna waxa aan ka dooranaynaa oo aan sharxaynaa 5 astaamood oo xaajigu lahaa sifaadkiisii yaan sharxaynaa 5 ka mid ah oon sheegaynaa waxa aan qoraynaa oo waxqabadka sagaalaadna waxaan qorayaa waayaha qof aan aqaan aniga oo raacaya tallaabooyinkii saxda ahaa ee loo qori jiray waayaha taariikhda qofkaan ka sheekeynaya waxqabadka 10aad waxa aan akhrinayaa waayo qof laga qoray taariikh qof laga qoray kadibna waxa aan ka qorayaa qormo aan ugu hadlayo waafaqsanaanta habka loo qoro waayaha iyo waxa ka maqan sidoo kale waxa aan qoraalkayga ku soo darayaa aragtidayda iyo dareenkayga qoraalka ku saabsan sidii casharadii hore ku soo arkaysay sheekadaas waxyaabaha ka qaldan saxaysa oo soo ururinaysa oo soo qoraysa ardayda casharkaygii adinkoo aad u mahadsan intaas ayaan kusoo koobaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.